haddii aan dib ugu noqdo hadalkaasi maxamed biike uu sheegay waxa uu sheegay in qaraxyada xamar haddii ay doonayaan muqdisho weeyaan in ay ka istaagaan ay marka hore ictiraafaan Somaliland taasi oo marka la fasiro noqonaysa in qaraxyadu aanay istaagi doonin ilaa ay inta Soomaaliya ay ictiraafayso Somaliland hadalkaasi oo meel uu ka heesay uu ka jeediyay ayaa dad fara badan oo Soomaaliyeed ka keeneen ficilo kala duwan oo runtii ay aad uga xumaadeen haatan waxa khadka telefoonka magaalada London ee wadanka UK ku jira oo aan khadka ku wareysan doonaa abwaan Xuseen Shire Cayaar Jecel oo runtii dad fara badan oo Soomaaliyeed ay wada garanayaan abwaanku waana nin heesaaya oo degan magaalada London kooxdii qayladaan ayuu ka mid yahay oo waxa uu soo gudbiyay heeso fara badan oo dhinaca wadaniyada tilmaamayay waxa uu weerar kala duwan oo ku qaaday kooxda argagixisada ee haatanba dadka ku leynaysa magaalada Muqdisho oo ay heesahoodii ku soo bandhigi jireen marka hore aan soo dhaweeyo abwaan Xuseen Shire Cayaar Jecel oo khadka telefoonka magaalada London ku jira abwaan Xuseen Shire marka hore soo dhaweynaya soo dhawo waa dhawahay waan ka qaadaysan qiimaha badan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay waraysiga maanta ila yeelatay midda labaadna waxaan tacsi tiiraanaysan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii masiibada mar walba ku habsatay tii ugu dambeysay shalay ka dhacday magaalada Muqdisho controlkii afgooye ayaan runtii ummadda Soomaaliyeed tacsi tiiraanaysan uga dirayaa waana dhawahay waayahay aad baad mahadsantahay aan hadalkeena guda galno su'aasha ugu horeysan ku weydiinay waxa weeye sidaad hadalkayga ka maqlaysay hadalkii uu jeediyay BK fanaanka maxamed BK la yiraahdo marka ugu horeysan intaanan ku oran sida u aragtaa hadalkii uu yiri bal mar igu celi waad mahadsantahay horta runtii hadalkaas fanaankaas uu jeediyay runtii hadal waqtigiisa lahaa ma yahayn hadal wuxuu ahaa runtii gab ah hadal wuxuu ahaa naxariistu ka fogtahay hadal wuxuu ahaa gab ku ah fanka Soomaaliyeed buu xataa ahaa haddii uu xataa ahaan lahaa nin xataa siyaasiya xataa waa la iskaga dulqaadan lahaa waxa weeye hadalkaasi hadal gab ah oo runtii shucuubta Soomaaliyeed meel kastay joogaan amaba ha joogin ama ha joogeen Djibouti ama ha joogeen Somaliland ama ha joogeen Amar runtii waxay ahayd hadal gab weyn ku ah oo runtii isaga shakhsiyadiisa ku kooban oo aan runtii wax dadku ay runtii dhagahooda ku fiicansanaayo hadalkaas ayuu ahaa idinka ka fanaaniin ahaan sidee u tarjumateen wallahi anaga fanaaniin ahaan runtii hadalkaasi sidaad xataa aad buu noola foolxumaaday wuxuu noola foolxumaaday in nin fanaana oo ummadda Soomaaliyeed ay jecel yihiin oo runtii codkiisa ay jecel yihiin in micnaha horta uu micnaha xilli 100 qof oo Soomaaliya ay dhimatay 100 qof oo Soomaaliyana ay dhaawacan tahay oo geeri xun oo naxdin la ay ka jirto inuu meel uu waliba ka heesayay oo ka dabaaldegayay micnaha markii hore wuxuu yiri waxaan uga tacsiyeynaa dhibka xamar u dhacay inta markuu yiri kadib ayuu intaana sii raaciyay marka wixii uu yiri fiicnaado marka hore waxa isku fuqsaday erayada aadka u qorasho xun ee faraha badan ee tiqtiqsiga weeg ayaa ku fuqsaday aad iyo aadna waxaan uga xumaanay fan ahaan in fanaan ah oo heesaa micnaha qaabka noocaas uu hadlo aad iyo aad baan runtii uga xumaanay oo fanaanintu aad bay uga xumaadeen meel kasta joogaan laakiin Xuseen BK ma markii ugu horeysay uu Muqdisho ka hadlo ama dadka Soomaalida uu ka hadlo marar badan ayuu hadalada gafa oo ka dhana dadka Soomaalida uu ku hadlay maxaa ugu cambas leedahay ninkaas inuu had iyo jeer Soomaalida uu wax ka sheego wallahi horta niyo rubahanti horta nin walba horta waxa la yiri garaadkiisu horta hadla anigu ma garan karo waxa horta ku kasbay mar walba macnaha waxa qofku uu macnaha qadiyadiisa uu sheegi karaa
laakiin ma ahan qadiyadiisa inuu ku aflagaadeeyo dadka intiisa kale micnaha waxa weeye haddii uu Somaliland ninkaasi uu doonayo uu jecel yahay dalkiisa wax dhibaato ma leh waa caadi weyn inuu Somaliland nibadiisa ku faano laakiin in uu ku aflagaadeeyo dadka kale oo shacabka ah uu fanaanka u yahay ayaa waxay tahay wax aad u foolxun oo runtii mar hore oo aan runtii ka daawanayay isagoo la leeyahay Nairobi baa lagu xumeeyay uu Hargeysa ku noqday oo la waraystay uu leeyahay ma Muqdisho bisha Soomaalida inteeda kale Muqdisho halkeeda ay ga joogto Soomaalida inteeda kale hadday siiyaan $100 ayaga ugu filan marka anigu waxaan aaminsanahay khadiyadiisu xataa inaysan saxayn ay tahay business ay tahay oo taas ku cadeynaysa hadalkii uu yiri oo ahay Soomaalida inteeda kale hadday shilibasaysan $1 ayaa ugu filan marka anigu waxaan aaminsanahay xataa qadiyada uu sheegay inuu tahay wax business uu doonayo inuu intuu nool yahay dhowrka bari ku noolaado marka runtii waxa weeye waa gaf weeyaan in shacabku uu gafo haddii uu ahaan lahaa nin siyaasi ah uu ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd laakiin bika inuu fanaan yahay inuu xuseen shiro ciyaar jecel aan ku weydiiyay su'aal kale London baad joogtaa fanaankuna wuxuu joogaa magaalada London xafladda uu qabtay ee dadku isugu yimaadeen iyo meesh uu ka heesayay dadka uu heesayay ma waxay ahaayeen in go'an oo oran karaysid reer Hargeysa buu heesayay mise Soomaali weyn oo dhan buu heesayay ninkan marka hore wallahi anigu horta waxaan aaminsanahay horta Soomaali badan oo meesha ugu tagtay way jiraan inkastoo xalay ay sheekadu ka bedelnayd oo markii qarax xamar ka dhacay fanaaniin fara badan oo aan saaxiibanahay anigu aan aqaano isaga u socday ay ka baaqdeen meeshii oo ay yiraahdeen maadaama uu dhibaato dhacday dad badan ee la'day inaan meesha ka heeso ama aan meesha tago oo layga arko falxumay ugu tahay isagu markaa duuba ka heesay xataa uu dabqan waayo boqolkii qof oo dhinto xataa showgiisii qabsaday may ahayn inuu haddana runtii uu ku tiiqsado dhaqanka Soomaaliga kuma jirto waa wax dhaqanka Soomaalida dhaqan beelada runtii ayaan aaminsanahay marka runtii waxaan aaminsanahay dad inay ku jireen badan inkastoo dadka qaarkood ay meesha ka baaqdeen Xuseenow runtii waxaan aaminsanahay in micnaha ninkaasi uu runtii uusan ka fiirsan wixii uu ku hadlay Xuseenow hadaladiisa waxa kamid ah hadii Muqdisho ay doonayso inay nabad ku noolaadaan ama ay nabad helaan waa inay ictiraafaan Somaliland kelmadda uu yiri oo sidaas ahayd oo dad far badan oo Soomaaliyeed ay ka xumaadeen ka Xuseen ahaan ku weydiiyo ma kelmadda uu yiri baa xumayd mise xilliga uu yiri ayaa xumayd waxa kelmadda uu yiri ina way xumayd xilliga uu yirina way xumayd kelmadda uu yiri xumayd waxay ahayd isagu siyaasi ma ahan inuu ereygaas yiraahdo way ku xumayd isaga xilliga uu yirina way xumayd isagu waa shakhsi waxa weeye isagu qadiyadiisa qof u diidaysa ma jirto xor buu yahay wuxuu rabaa yiraahdo laakiin ma ahan in micnaha uu qadiyadiisa dadka shacabka la soo aado looma baahna laakiin shacabka mar walba ku aflagaade ma loo baahna xilligu yiri isagu yiri wadada way xumay waayahay idinku markaa dadkii dhibsaday ama u arkay inuu hadal xun aan munaasib ahayn uu fanaankaas yiri oo ah Maxamed BK oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa ma waxaad u arkaysay inuu yahay gaf BK oo shakhsiyadiisa galay mise idinka laftiin waxa u turjumanteen in reer Somaliland ay la hadleen oo ay godob idinka galeen wallahi hadii runta laga hadlo hadalkaas waa hadal isaga kaligiis u gooniya sababtu waxa weeye dadka ka falceliyay runtii hadalkiisa kor yimid waxay u badan yihiin dad Somaliland ay u badan yihiin waxaan aaminsanahay hadal isaga ku kooban weeye waa hadal business weeye waa business waxaan aaminsanahay inay yahay hadal business ah uu doonayo in micnaha afarta qof oo markaa hor joogta inuu ku raali geliyo uusan ahayn hadal biriga waxa imaan doono uusan ka fakirin waa hadal business ah uu doonayo micnaha inuu isku xiro dadka markaa dawladda halkaa ka haya iyo asagu inuu isku xirmaan uu dadka iskaga soo fanaaniinta kale waxaan anigu aaminsanahay sababta anigu BK maanan aqoon
laabsaalax baa na baray bikay waxaan aaminsanahay caasi uu ku caasiyey ninkii la yidhahdo laabsaalax inkaartiisaa ku dhacday waayahay xuseen cayaar jeclaan ku weydiiyey su-aasha kale ah fanaaniinta kale ee reer Hargeysa ama reer Somaliland kama hadlaan arrimahan iyo wixii dhowtoona maxaa BK keligii ku celceliyey dhowr jeer inuu ka hadlo arrimaha Soomaalida isagoo markaasi ku jeesjeesay waa maxay sababtu waxa weeye horta nin walba garaad buu leeyahay dad badan oo runtii fanaaniin Somaliland ah oo far badan oo waxaa jira qadiyada Somaliland u heesta nuur daanacay baa ka mid ah laabsaalax baa ka mid ah waxa weeye haddana Soomaalidu way jecel yihiin waxa weeye weligii yaalle iyagoo wax sheegaya ama dhahaya ama Soomaalida ama shacabka Soomaaliyeed wax ka sheegaya lama arkin waxaan aaminsanahay wuxuu u baahan yahay bikay iskuul buu baahan yahay inuu dib u galo waxa laga yaabaa inuusan iskuul dhigan de oo xaqiiqi uu ma yahay diinta iyo cilmiga maadiga labadaba waayahay fanaaniintiina arrintaa aadka ugu xumaatay ee ka dhiidhiday maxaa idinla gudboon hadda maxaad doonaysaa inaad samaysaan xuseen waxaanu cambaaraynaynaa bikay ayaanu cambaaraynaynaa gadka uu u geysanayo mar kasta ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ee ku nool koonfurta Soomaaliya ayaanu cambaaraynaa ma aha anagu Somaliland inaan ka soo horjeedno ma aha inaan Somaliland diidanahay qadiyadeeda haddii gooni isku taagaanna waa isku taageen hadday Soomaalida ka mid ahaana way ka mid ahaadeen waxaan kaloo u sheegayaa bikay ereyga Soomaaliya la yidhahdo ayuusan aqoon Soomaaliya Soomaali micnaheedu waxa weeye waa sinkiga Soomaaliga wey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waa Soomaali wey waayahay inuu yaqaano Soomaali micnaheedu waxay tahay isaguna marka anagu waan cambaaraynaynaa meel kasta oo aan joogno waxaan leenahay fanka Soomaaliyeed ayuu meel uga dhacay bikay waxaan leenahay ha ka toobad keena apologize iyo raaligelin ka bixiyo waxa maalin kasta ummadda Soomaaliyeed ee koonfurta degta uu doonayo inuu business ka dhigto ee maalin walbaba uu dhiiga xasaradooda dadka intuu kiciyo uu shilmaadka uga qaadanayo waayahay ninka fakarkiisa uu nooca yahay ee iyadoo meydiyaallo meydkii ku taagtaagsanaya ama ku jeesjeesaya heesaha dambe uu soo saari doono ee caashaqa ah ee dad fara badan oo dhalinyaro ay inta badan dhageystaan madaxa u raxaan dadka maxaad ku oran lahayd dhageystayaashiisa ah ee u heelan inay weli daba socdaan maxamed bikay waxaan dhihi lahaa anigu bikay hadduusan raaligelin ka bixin oo qaladka maalin kasta uu Soomaalida ka gelaya hadduusan raaligelin ka bixin adduunka waxa ugu xun cunsuriyadda ereyga cunsuriyadda la yidhahdo ayaa ugu haddii qofku cunsuriyeeyo wax ka xun adduunka ma jiro haddii marka cunsurinimadiisu ay sii jirto saas sii ahaado uusan raaligelin ka bixin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa inaysan dib dambena u dhagaysan hees uu leeyahayna aysan dhagaysan show uu dhigayana aysan gelin hadduusan raaligelin ka bixin dambiga uu ka gelaya maalin kasta ayaan oran lahaa hankana meel weyn ayuu uga dhacay anagu waxaan ka mid nahay fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed u heesta oo aan dambi ka gelin oo aan qalad ka gelin meel kasta joogaan ayaan leenahay waxaan leenahay waa inuu raaligelin ka bixiyaa hadduu ka bixin waayana waa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto aysan dib dambe bikay u dhageysan waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay abwaan xuseen aad baad mahadsan tahay waraysigaasi aad noo soo gudbisay thank you waad mahadsantahay adigu sidoo kale waad mahadsantahay waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi